السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu yara milicsan doonaa dhinaca qoyska. waxaanu marka kooban aynu eegaynaa jawaab bixinta sheekhu ka bixiyay haweenka la mastaafaysto meherkoodu ma ansaxaya. dumarka la masaafaysanaya meelaha lagu soo mehersanayo iyo meher xadka labadaba isku dar tuugaysiga labaduba waa wax ay diideen shariicadu diiday. جزاك الله إلهي الشيخ عشر يا حسنات هكسيو بروحة كلين ويغينا هورتو عهورتو كدراتا مصطفى سيغاسيا مهر حدكا إياغونا سيديبا حالة دودو نقونيسا عرورتا تمت عرورتو إياغو لبا قوربا وعرور شرعي صوت محي تهي nikaaxu ama ha saxo ama yuusan asixin caruurtu laba gooraba abtirkooda waay maayaan. jazaaka allah sheekhu aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay sida jawaabta waadaxa uu inoo siiyey ee uu inooga jaahil tiray ee arrintaa si hufan oo qurux badan uu inoogu jawaabay. ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo aad u weyn. waxaynu insha allah eegaynaa afar arrimood oo ku sababa raggu inay sameeyaan guurarka qarsoodiga mastaafaysiga iyo qudbasiraha iyo haddii ay noqoto meher xadka. afar inta badan qoysku la soo qaataynu eegaynaa. arrinta kooban waa waxay dhaqan ahaan Soomaalidu ay aaminsan yihiin in qaabka noocaas la isku guursan karo. in qaabka noocaas la isku guursan karo oo cultural ayay arrintaa u aaminsan yihiin. mastaafadoo kale dhaqan ahaan bay iska soo gaadheen oo arrintaasi waa arrintan dhaqanka ay ka heleen oo waa arrinta koobaad. dhaqan ahaan bay u aaminsan yihiin ama dhaqan bay ka ahayd arrintaas. arrinta labaad waxay aaminsanaayeen arrintaasi inay xalaal u tahay oo markaas ay arrin mubaaxa ay u tahay oo ay sidaa isku guursan jireen oo iyaduna aaminaad kale ayay ahayd oo markaas inta aanay culimadu qaabkan quruxda badan aanay ugu jawaabin sidan hufan aan lagu kala saarin inay aaminsanaayeen guurarka noocaasi inay yihiin kuwa xalaala oo sidaa ay aaminsanaayeen oo aaminaad noocaasina ay jirtay. arrinta saddexaad ayaa waxay tahay dhaqaale xumo oo mararka qaar waxaa dhici jirtay ninku haddii aanu dhaqaalo uu reerka ugu soo fadhiisto ama gabadha uu ku soo doonto aanu haysan inuu gabadha mastaafaysan jiray isagoo aabihii in reerka ay hortagaan iyo reerka gabadha inay hortagaan aanay awoodin oo markaas reerkii in lacag loo geeyo oo gabaadi loo geeyo oo de gabadhii meherkii laga bixiyo oo la mehersado aanu si fiican u awoodin lacagtaas iyo qarashaadka aabihii qaadayo ee gabadha aabiheedu geynayo aanu awoodin ama isaguba dee aanu wuxuu gabadhi kula soo hor fadhiisto reerkooda aanu hayn. haddii dhaqaale xumo noocaasi ay jirto iyana way ku kaliifi jirtay ragga inay markaa guurarkan mastaafaysiga iyo meher xadkiya waxyaabaha ay sameeyaan. arrinta afraad ee ugu dambaysa ayaa waxay ahayd ragga xaasaska badan leh inay arrimahan ay sameeyaan. ninku hadduu laba xaas qabo ama xaas kale qabo xaas labaadna uu doonayo inuu guursado inuu sidaa ku kala qariyo oo markaas midna uu qarsado oo ama markaa uu mastaafaysto ama uu meher xado ama uu qudbasiro ku samaysto isagoo markaa xaasaskiisii kale ka qarinaya oo ninka inta badan guurarka badan dumarka badan qaba isaguna inuu qaabka noocaas uu markuu doonayo gabadh kale inuu guursado inuu guurarka qaabka uu sameyn jiray meher xadka uu sameeysan jiray mastaafaysiga uu sameyn jiray qudbasiraha uu sameyn jiray. qaabkaas afartan ayaa inta badan guurarkani ay ku dhici jireen ilaa haddana qaarkood ay ku dhacaan. muhiimadda aynu soo qaadanay ayaa wuxuu ahaa marka koobaad waa cutub qoys
oo runtii u baahan in la isku iftiimiyo. marka labaadna haddii aad guri yagleelayso oo nin aad tahay oo aad doonayso guri inaad dhisto dee inaad aad uga taxadartaa wanaagsan. aad guurkan aad samaynaysaa xalaal ma yahay? meesha fruit baa kaaga soo baxayo, midhaha kaaga soo baxayo, ubad baa kaaga soo baxaya. ubadkaaga miyaanad u meel dayanaynin oo ubadkii inaad ka taxadarta sow maaha? waxaan filayaa jawaabta shiikhu ina siiyey ayaa arrintaa inagaga filan. markaa ninku marka uu guursanayo mawduuceenu waa mawduuc ay gelinaya awareness oo ku socda ragga iyo haweenka ku dhood. ilaa haddaan haweenaydii lafteedu aanay yeelin ninkii uma suura galayaan guurarka noocan oo kale ah. in taxadar weyn ay ka yeeshaan, in arrinta ay ka taxadaraan ayaa mid muhiim ah. intaasaan ku soo ururinayaa farxad iyo caafimaad taam ayaan idin rajaynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.